maalmihii ugu dambeeyay waxaa si weyn looga hadlayay buug uu qoray la taliyihii hore ee dhanka ammaanka ee madaxweyne Trump, John Bolton. Haddaba waa kuma John Bolton? John Robert Bolton waxa uu dhashay sanadii 1948. Waa diblomaasi, qareen, la taliye ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, kaas oo xilal badan ka soo qabtay waddanka Mareykanka. John Bolton waxa uu soo noqday kaaliyaha madaxa horumarinta caalamiga ah iyo isku dabaridka barnaamijyada siyaasadda intii u dhaxaysay 82 ilaa 83. si lamida waxa uu noqday kaaliyaha xiriirlaaliyaha guud ee Mareykanka ee xafiiska sharci dejinta intii u dhaxaysay 85 ilaa 88. John Bolton ayaa sidoo kale noqday kaaliyaha xiriirlaaliyaha guud ee Mareykanka ee qaybta rayidka intii u dhaxaysay 88 ilaa 89. mar ayuu soo noqday John Bolton kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha ururada caalamiga ah intii u dhaxaysay 89 ilaa 93. waxaa loo magacaabay John Bolton kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha maamulka hubka iyo amniga intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2005. John Bolton ayaa noqday safiirkii Mareykanka u fadhiyay qaramada midoobay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2006. madaxweynaha Mareykanka ee imika Donald Trump ayaa la taliyihiisa dhanka ammaanka u magacaabay John Bolton 9 Abriil 2018 waxa uuna shaqada ka cayriyay 10 Sebtembar 2019. Trump ayaa markii uu xilka ka qaaday Bolton ku sifeeyay inuu yahay nin meelmaag oo aad u qallafsan. Bolton ayaa ahaa nin aad ugu adag arrimaha Iran iyo North Korea. dhowr jeer ayuu si toos ah u mucaaraday go'aano uu qaatay madaxweyne Donald Trump. John Bolton ayaa qoray buug uu ciwaankiisu yahay qolkii ay dhacdooyinku ka dhaceen. waxyaabaha buuggan uu ka hadlayo waxaa ka mid ah Trump ayaa ka dalbaday Xi Jinping madaxweynaha waddanka Shiinaha inuu ka caawiyo sidii uu muddo dheer u ahaan lahaa madaxweynaha Mareykanka. buugga John Bolton waxaa ku qoran in Donald Trump uu Shiinaha ku bogaadiyay dhismaha xeryo lagu xirxiro muslimiinta iyo goor. sidoo kale waxaa buugga ku qoran in Trump uu jecel yahay madaxda keligii taliska ah. waxyaabaha buugga uu taabanaya waxaa ka mid ah in dimuqraadiyiintu ay ku fashilmeen sidii ay xilka uga qaadi lahaayeen Donald Trump kadib markii ay kaliya xoogga saareen arrintii dowladda Ukraine iyo Joe Biden, iyadoo la heli karo mawduucyo kale oo aad uga xasaasisan. buugga Bolton waxaa ku qoran in Trump uusan ogeyn in dowladda UK ay ku qalabeysan tahay hubka sida baan wax u gumaada ee nuclear-ka. mar ay kulmeen Donald Trump iyo Theresa May ayay May soo hadal qaaday nuclear-ka waddanka UK. markaas ayuu Donald Trump weydiiyey UK inay nuclear leedahay. buugga John Bolton waxaa ku xusan in madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uusan aqoonin juqraafiga. mar uu caasimadda Finland ee Helsinki kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayuu weydiiyey in Finland ay ka mid tahay waddamada hoos yimaada dalweynaha Ruushka. buugga Bolton sidoo kale waxaa lagu qoray in madaxweyne Donald Trump uu damcay in uu burburiyo NATO oo faa'iidada ugu weyn ay ka hesho dowladdiisa Mareykanka. buugga waxaa ku qoran in Donald Trump uu aad u jeclaa in uu weerar ku qaado waddanka Venezuela. John Bolton oo ahaa la taliyihii hore ee Donald Trump ayaa buuggiisa ku sheegay in shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanku ay ku maadaystaan madaxweyne Donald Trump waxayna ugu yeeraan odaygii dabaalka ahaa. John Bolton ayaa sheegay in shirarka looga hadlayo arrimaha ammaanka qaranka Mareykanka ee sirdoonka uu Donald Trump iska hadlay in ka badan khubarada sirdoonka ee joogta fadhiga.